daawadayaal dooxan iga dambeeya waa dooxa u barkhadle ee ku yaala deegaankan ee ka tirsan gobolka Maroodijeex waxaanu ka mid yahay dooxyada ku yaala dhinacan ee dhibaatada ba'an ku haya dadweynaha u kala safraya gobolada bariga iyo waliba galbeedka Soomaaliland dadka deegaankan ay si ba'an uga qeylinayaan dhibaatada ka timaada dooxani waxaana maalintii shalay haydaadkii soo rogmaday Allah u naxariistay u galaaftay laba haween oo walaalaal oo kala oran jiray Asma iyo waliba Foosiya haddaba dadka deegaankani ayaa waxa iiga waramayaan isla markaana TV-ga Universal ay u sheegayaan iyagoo goobjoog u ahaa dhacdadaasi maalintii shalay ahayd ee ku dhinteen labada dumari sida u dhacday waxaan shalay goobjoog ka ahaa dadkaas isagoo yar bay dumarku soo galeen kolka wadadu way goday xaggan soke waxay ka noqotay way ka jiiftaa gawaadhidu hadii jeer dadku markuu marayo gawaadhidu way gashaa xaggaas ay u leexdaa isla markiiba maxaan leeyahay laamigu ka tuuray intaanu dumarku intaanu aad uga tuurin dumarku way qayliyeen hoonkana in badan bay garaaceen ee wax markaa gurmad loogu sameeyo waa la waayay qofkii walba naftiisii baa la lixjeclo weynaatay laba inan saddex inan baa u tagay saddexdii inan mid kulku sidaa gacanta ugu taagay gaarigii baa ciiray maxaan leeyahay gaarigii isla markiiba ruuxii dumarhayd uu ku jiifsaday wax qalab oo loogu shaqeeyo wax maxaan leeyahay gaariidoo dawladda ka tirsan oo jooga wax maxaan leeyahay inde marka adeeg dawladeed oo weyn oo ama cagafoo kale ama xarig weyn oo la qabsado ilaa daanta gaara uu baa qofka badbaadin kara laakiin de qof isba naflay qof isba de uu qaaday oo cabaadaya ma badbaadin karo waa la badbaadin kari waay marka inamadii u tagana halis bay naftoodii gashay tan iyo intii maxayd ma taqaanaa ay hawshaasi habeenkii xalay ahaa ee shalay ay dhacday labada dumar ay ku geeriyoodeen xagga wax gurmado xagga dawladda ama ka hesheen mise shacabkuun buu hayo marka horeba la tacaali intii horena shacabkuun bay haayeen wixii la tacaali dhibaatooyinka ma gurmo gurmad xukuumadeed dee la arkay ma jirto maanu arag shacabkuun baa dee mar walba intaan xarka isku xulno aan baan dadka u gargaari jirnay oo naftaydan biimeyn jirnay intaana dee waa la arkay xukuumad kastoo meesha dee soo martaana way maraysay waanay arkaysay dee macal madaxweynayaasha kamida sidoo kale qaar ka mid ah dirawallada u kala goosha gobolada bariga iyo waliba galbeedka Soomaaliland oo la hadlay TV-ga Universal ayaa ka waramay dhibaatada uu leeyahay dooxani deegaanka maxaa halay wadooyinka u hal saaranayeen hawlaha guud iyo cid kastoo xusuusan mas'uuliyadda waxaan leeyahay war dadkiina inta dhaldhalaal ku magac doonanaysaan wax kaga doonaysaan waxbaa ka qaadana waxa ay ku celinaysaan wax muhiim ah ugu qabto oo dooxyada naf iyo maalba khasaaraha geysanaya waqtiyada nimcooyinku bilaabmaan dadkuna oohinta ay maxaan hayay u sababaya waar birisho u sameeya dhinaca kale isla maanta dooxa weyn ee Arabsiyo ee gobolkaasi Gabiley ayaa waxa uu soo rogmaday isla markaana uu xanibaad fara badan ku keenay dadkii u kala gooshayay deegaanada gobolada Gabiley iyo waliba Boorama oo xanibaad fara badan kala kulmay iyadoo dadka qaarna ay amaba xanuunsanayaan ama dhibaato kala hayso oo ka kala noqday labada gabi ee dooxa waana dhibaatada ugu waaweyn ee ay ku hayaan dooxyadani Soomaaliland walow xukuumaddu ay ka qabatay waxoogaa tirayar dooxyada ku yaala Soomaaliland balse dheefta iyo dhibta dooxyadu leeyihiin ay ka badan tahay dhibta ay keenaan dooxyadaas Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa